baqadeeg umuu soo ordin oo adiga ka baqayay ninku waa Muuse waa tiri xiniya yeesha xiniyo waa kuwaan ku hadlaynaa waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan isku dul taagi doono arrimo la xiriira xaaladda dalka hadday tahay kuwa siyaasadeed iyo kuwa nololeedba xisbiga ka waa xisbiga labaad ee ugu weyn xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa xisbi curdina waa xisbi ku caana wadaniyad ilaalinta danaha guud midnimada iyo wada jirka ummadda sawir beena dhigayagu kama bixin karo xisbiyada waxa sawirada ka bixiya u kala marxaati fura bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii dalka Israa'iil galabtii 26 Disembar ay aqoonsatay jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga ka wuxuu iska taagay mowqif cad oo aan madmadow lahayn xisbiyada qaranka wuxuu ahaa xisbiga ugu badheedha cad ugu qoraal badan ee arrimaha ka hadla galabtii markii warku soo dhacay qoraalkii ugu horeeyay saddexda xisbi qaran waxa baahiyay xisbiga ka waxaanu mahad celinay dalka Israa'iil waxaanu soo dhaweynay aqoonsiga waxaanu ku tilmaanay talaabo taariikh oo guul ah waxaanu bogaadinay adkaysigii iyo dhabaradaygii shacabkayaga waqti yar kadib waxaana looga yeedhay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kulan nagu marti qaaday madaxweyne Cabdiraxmaan saddexda xisbi qaran madaxdoodii madaxweynayaashii iyo ku-xigeenadii dalkan soo maamulay iyo labada shir guddoon ee labada gole madaxweyne Cabdiraxmaan wuxuu noo jeediyay hadal kooban oo ah waa layna aqoonsaday waxayna aqoonsaday dalka Israa'iil hadalkaasi wuxuu ahaa intii uu shacabka u sheegay ayuu raggii dalkan taladiisa ku weheliyay kula wadaagay waanu bogaadinay halkaasaa laga wada hadlay madaxdii oo dhan baa hadashay waa la bogaadiyey talooyin wax ku oolana waa la siiyey madaxweynayaashii hore madaxweyne Daahir Riyaale Cabdiraxmaan Cali Faarax Muuse Biixi Cabdiraxmaan Saylici waa laga wada talooyin aad u oola oo ageediga aqoonsiga Israa'iil sida loo kaxaynayo iyo khataraha ku xeeran sidaynu uga badbaadayno maadaama aynu nahay dad wax baryayo yaba hosanaya aqoonsigeena yahay kii talaabadii ugu horeeyay talooyin baa halka laga soo jeeday talooyinkaas iyo hadallada warbaahinta looma soo gudbin intii sawirada la doonayay iyo hadalladii la doonayay ayay xukuumaddu gaar u ugatay 27 bisha Disembar waxaan sameeyay qoraal kale anigoo afka xisbiga ka ku hadlaya oo aan ku iftiiminayo warar maran habaabin oo ay baahisay dawladda Soomaaliya aan kuna cambaaraynayo waxaan xoog ugu dheeraanay aqoonsiga Soomaaliland iyo sharciyadda uu haysto war-saxaafadeedka mar kale waxaanu uga mahad celinay dalka Israa'iil waxaanu xusnay inay sanadkii 26 Juun 1960 ina aqoonsadeen iyagu 28 bisha waxaan si toos u baahinay qoraal kale oo aan ugu baaqayno dalalka midowga Afrika midowga Yurub jaamacadda Carabka dalalka Islaamka wadamada deriska aanu qadiyadda Soomaaliland ku soo bandhigayno
uguna baaqayno inayna aqoonsadaan. waxaanu si adag u difaacnay go'aanka Israa'iil inuu yahay mid waafaqsan mabda'a sharciga caalamiga ah maadaama Soomaaliland ay leedahay xuduudo sugan dal jirayna ay ahayd arrimahaasaan isdul taagay. 30 bisha December waxaanu baahinay qoraal kale oo doodii qaramada midoobay ka dhacday golaha ammaanka aanu ku bogaadinayna dalka Israa'iil sidii ficiladu u difaacay qadiyadda Soomaaliland. waxaanu ku dhaliilay oo ku cambaaraynay wakiilkii dalka Soomaaliya halkaa u fadhiyay iyo hadaladii uu ka jeediyay iyo sidii indhala'aanta ahaa uu dafiray xasuuqii iyo gaboodfalkii ummadda Soomaaliland loo geystay. isla 30 bisha waxaanu baahinay kulankii wada jirka saddexda xisbi qaran isugu yimaadeen ee ay qadiyadaas xukuumadda ku taageereen ugana mahad celiyeen dalka Israa'iil. isla xilligaa 28kii waxaanu baahinay waraaq rasmi ah oo aanu u diray dalka Israa'iil oo mahad celina. مواقفta cadcad ayuu xisbiga kaah ka leeyahay Soomaaliland. ma hulaab xili waxna ma qarsana anagu tan iyo intaana madaxda xisbiga iyo haldoorka xisbigu waxay ku difaacaan qadiyadda Soomaaliland baraha bulshada. kulan uu isugu kaayeeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi waxaanu madaxweynaha haddaanu xisbiga ka ahnahay annagoo si gaara golihii ka weydiinay dalka Israa'iil iskaashiga aynu yeelanayno noocawiya inay jiraan wax shuruud ah oo madaxweynuhu galay inay jiraan wax heshiisye ah oo uu hadda curinayo ama ku tala jiray inuu galo. madaxweynuhu wuxuu noogu jawaabay wax shuruud ahina ma jiraan wax heshiisahina waynu gelaynaana ma jiraan ilaa aynu adkaano. waa bixarfi qowl uu madaxweynuhu nagu yidhi. shiraanu saddexda xisbi isugu nimi waxaanu xisbiga wadani u bandhignay in tallaabada aqoonsi raadintu iyo geedigeedu ay tahay mid qaran ee aan ahayn xil fulineed ay tahay tala wada jira. sidaa darteed waa inay tashiga naga qayb geliyaan. fariintaa waa qaadayna madaxweynahaanu geersiinaynaa bay nagu yidhahdeen annagoo saddexda xisbi ah. ilaa iyo maalintaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne cabdiraxmaan ciro waxay mashruucaa ku gashay si tala jees ah. oo ay keligeed isku koobtay xogtiisa iyo xaaladdiisa iyo axwaashiisa. talooyinkii madaxdu jeediyeen waa la faafreebo waa la qariyey. codsiyadayadii iyo dardaarankayagii aanu dhinaca kala faydnayn waa la dhayalsaday. waxaanu nidhi hadday ku filan yihiin u daayay. waxaa noo xigtay madaxweynaha safarkiisii oo uu heshiisa galay. talada qarankani waxay ku dhisan tahay tala wadaag buu qarankani ku dhisan yahay. wuu ku soo caana maalay taladiisa xisbi keliya iyo ruux keliya tuurta kuma qaadan karaan. arrimaha masiiriga ah marka laga hadlayo arrimaha maamulka ee loo doortay ma nihin kuwa ku haysta xukuumadda xisbiga wadani kuwa ku haysta ma nihin. arrimihii wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland markii la gelayay
xukuumaddii xisbiga kulmiye ee uu axmed siiraanya garwadeenka ka ahaa wadajir baa lagu geliyey xisbiyadu way israaci jireen kulanadaa laga wada qaybgelay waxay macnaheedu ahayd in talo wadareed waxa la wadana la ogaado waxna la isku biiriyo waxba maanu dhaliilin waxna maanu durin intaaba jaanta iyo jiibtaanu lahay madaxweyne cabdiraxmaan inuu xisbiyada qaranka la tashado in uu xog siiyo isagiyo xukuumaddiisa way seegtay markii ay safarada galeen inay xog siiyaan iyo inay shacbiga xog rasmiya la wadaagaanna waa seegtay haddaanu hadallay oo mowqifkayaga caddaynayna inay gogol dhigaan ilaa xisbi qaran baanu nahaye oo xisbiyada mucaaradka u yeedhaan oo uu hadal odaynimo la jeediyo idhaa war miiskay taladu taallaana taasina waa seegtay oo wixiina loogu soo jawaabay waa tii shacbiga somalilan ka markhaatiga xisbiga kaah muxuu diidan yahay aqoonsiga waa qadiyad qaran la soo waday aan xisbi iyo qof ku koonayn waa masiir ummaddan ka go'an tacab weyn baanu ku leenahay iyo talo badan xisbiga kaah badheerihiisu wuu cad yahay abriiqna ku addimi mayno sida qarandidina marba meel madaxa gelin mayne aragtidayadu waa mid cad waxaanu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku dhaliilaynaa talada ay keligood la jeeseen heshiisyada aanay qarankan daneeyaashiisii u soo bandhigin hadday tahay xisbiyada qaranka golayaasha qaranka aanay la wadaagin kuwaas ayaanu diidannahay oo ka soo horjeeda waxaa la gudinayo ee gaarka loo faashanayo ee tuurta lagu sito weeye waxaanu farta ku fiiqaynaa waxaanu diidannahay oo xisbiga kaahu ka soo hor jeedaa in xafiiska somalilan laga furo magaalada barakaysan ee qudus masjid alaqsa si cad oo badheedhe leh baanu uga soo horjeedna ninna kaga gaban mayno waxaanu diidannahay maaha wax xidhiidh la leh qadiyadda aqoonsiga dhaliilahooda iyo godolooladoodu hadday dawladdu ku qarinayso aqoonsi baa la diidan yahay waa hadal jaban waana dacayad rakhiis ah shacbiga somalilanna kama iibin karaan annagana naguma duri karaan niyaddayadana wax kuma yeeli karaan madaxweyne cabdiraxmaan iyo madaxda xisbigiisa iyo xukuumaddiisu shalayto waxay taageerayeen qadiyadda qudus waa u ducaynayeen hadallo waaweyn ayay ka yidhaahdeen oo maanta baraha bulshada ku jira maantana waa kuwa hadalkoodu noqday qudus way qaybsan tahay anasib dar shalayto waxay diidanayeen MOU-gii markii madaxweyne muuse waday waxay lahaayeen dee waxaananu xogogaal ka ahayn taageeri mayno heshiisyadii qarankanee la gelayay ee kale bay ka soo horjeedeen ee DPL ka mid ahay iyagoo shalay mucaarada maanta intaa oppositekeeda ayay ku dhaqmayaan waxaan leeyahay mudane madaxweyne adiya raggaagu ma shalay baad saxnaydeen bise maanta haa iyo maya isku soo noqnoqota idinkaa laydinku yaqaana annagu xisbiga kaah waxaa halbeeg u ah hilin cad hadaf cad iyo hadal cad xisbiga kaah ma diidana jiritaanka dalka Israa'iil
xisbiga kaah ma diidana in dalka Israa'iil iskaashi lala yeesho lala macaamilo ma diidanin waxaanu ku doodaynaa waa qodobo dastuur jabin ah heshiisyo qaran taladiisu aan tala wadaag ku dhisnaynee tala jees ah waa dastuur jabin heshiisyo qarankan saamayn weyn ku leh oo cid gaar u faashato waa dastuur jabin qadiyadda qudus waa dastuur jabin ummaddani waa ummad islaama ummad waliba diin bay leedahay dalka Israa'iil diin buu leeyahay waa ku ixtiraaminaa diintiisa waddamada aynu saaxiibka nahay ee reer galbeedka diimay leeyihiin waynu ku ixtiraamayna innaguna diin baynu leedahay ummaddan midnimadeeda iyo wada jirkeeda xukuumadda ka mas'uula aragtiyeeda kala duwan in la isku kaxeeyo tan iyo awow qadiyadda qudus shacbiga Soomaaliland waxay u ahayd arrin u suntan qadiyadda qudus iyo masjidul aqsa ma aha qadiyad carbeed mana aha qadiyad falastiin leedahay waa saxaynaa ragga ay maanta muraadaha mudmadow ku eegaya annagu kuwa cad baanu ku eegaynaa waxaasoo shuruuca xisbiga kaah wuu ka soo horjeedaa in lagu tunto dastuurka qaranku tacab baa loo soo maray egleeshiisa waa waxa ummaddan isku haya madaxweyne cabdiraxmaan qodob ka mida buu madaxweyne ku yahay oo ummaddan ku xukuma isla qodobo ka mida baa xilkiisa iyo waajibaadkiisa qeexaya isla qodobo ka mida ayaa xuquuqda lagu leeyahay waajibinaya isagana laga doonaya madaxweynaha kaasaa lagu dhaariyaa kitaab baa gacanta loo saaraa inuu daacad u yahay dalka iyo dadka iyo diinta ayaa lagu dhaariyay annagu waxaan u aragnaa ictiraafka aynu helay inaanu ahayn full recognition ictiraafka buuxa waxa la marka qaramada midoobay qowmiyadaha iyo dalalka ku jira dhammaan ku aqoonsadaan ee kursi laga siiyo xukuumadda xisbiga wadani waxay u dhaqmaysaa inay Soomaaliland heshay kursi aqoonsi buuxa waa nasiib dar aragtidaas waa aragti sabool ah dhagixii koowaad baynu dhignay hayaan dheer baa inoo hadhay 195 dawladood ayaa laynaga doonayaa inaynu mid walba barino xidxido noo sasaban madaxweyne cabdiraxmaan wuxuu ahaa diblomaasi aqoon fiican u leh diblomaasiga waa nasiib darro isagoo fadhiya in kaaliyaashiisu ay hortiisa ku caayaan dawlado waaweyn oo aynu dano qaar leenahay ay qaarna derisnahay dalka Djibouti baa ka mid ah dalka Saudi Arabia ka mid ah dana dhaqaale oo ballaadhan bay ummadani ku leedahay dalka Sacuudiga ixtiraam iyo qadarin baynu ahayn dalka Turkiga waa dal weyn dalalka waynu ku soo kala horjeegnaa arrimaha aqoonsiga Soomaaliland diblomaasiyadda waxay leedahay formula diplomacy is how you can talk your enemy diblomaasiyaddu waxa weeye waa sidaad ula dhaqantaa ula hadasho cadawgaaga arrimaha qaar baad ka wada socotaan qaarna waa ku kala duwan maaha macnaheedu mar hadduu qadiyadda aqoonsiga ka soo horjeedo inaynu tuurayno waar qolada maanta inaa aqoonsatayna waa mahadsan tahay kuwa berri aynu u baahanay inay aqoonsadaanna waa mahadsan yihiin oo inaynu barina jidka noocaasa waanu kaga duwannahay xukuumadda xisbiga waddan dunida caayaysa dunida cambaaraynaysa u haysa u tiiqsanaysa u tookhaysa tula la'aantu uga muuqato sidii ay maanta aqoonsi buuxa keeneen dalalka muslimku qadiyadda qudus waxaa ku midaysan 750 dawladood maaha qadiyad falastiin waa qadiyad diineed oo xasaasi ah oo iimaan ka waajibay oo tirada dunida 2 bilyan iyo 100 milyan ka mid ah waa 25 dunida boqolkiiba
10 trilyan baa dhaqaalahoodu dhan yahay qaar badan baa si dad badan inoo caawiya oo mashaariic badan Soomaaliland ka fuliya iyagoon inaan aqoonsanayn waa gef inaynu dalalka carabta iyo dowladaha islaamka ku tiiqtiiqsano oo maagno nin waliba intuu inoo jiro waa inay inoo caddahay intaynu u jirsan doonana waa inay inoo caddahay sidaynu xodxodanayno waa inay inoo caddahay midna ka quusanayno walaaladeen Jabuuti waa inaynu barinaa u abaal sheeganaa shalay xorriyadoodii baynu ka shaqaynaa wadamada carabta dadkii dhisay baa halkan ka tegay Soomaaliland dadkay Soomaali ka yaqaaneen inaga yahay waa inaynu abaal dhiganaa waa inaynu barinaa waa inaynu bidix iyo midug marba dhinac kaga nimaadnaa waa dhaliilaynaa anagu dariiqa iyo siyaasadda waxaanu leenahay siyaasad saboola iyo sawirro socdaalo saboola Soomaaliland laguma iibgeyn karo Soomaaliland waxa lagu iibgeyn karaa sawir fiican oo gudaha laga sameeyo maamul wanaagsan oon musuqmaasuq lahayn amni iyo dowladnimo adag midnimo iyo wada jir qaran shacbi isku aragtiya isku oda sawirka gudaha ka muuqda ayaa dunida inuu ka iibgeey dimuqraadiyad doorashooyin fiican doorashooyinku xilligooda dhaca war dunida waxaasaynu ka iibin karnaa dunida ay kama iibin karno hiif iyo haaraanna kama hagaag xinna iyo humbaalayna kama iibin karno dunida madaxweyne cabdiraxmaan ixtiraam iyo qadarin weyn ayaan u hayaa waa hogaamiyihii qarankan waxaanu diyaar u nahay inaanu kula shaqayno isaga iyo xukuumaddiisa wax kasta oo qarankan dan u ah mucaarad wax dibin daabiyeynaya oo wax daloolinaya ma nihin sidaa iyagu shalay u dhaqmayeen mucaarad mas'uuliyad iyo mudakarnimo ku dhaqmaya ayaanu nahay mudane madaxweyne bareeraha iyagu waa kaa aan kuu sheegay waa kaanu shalay sheegnay waa kaanu xisbigii shirkii golaha dhexe xisbigaaga hortiisa aragtidayada ka jeedinay midaanu la gabanayno midaanu qarsanayno maaha xisbigan waxaa madax u ah oo ugu sarreeya anigii cabdilaahi dheere qarankan raggii yagleelay baanu nahay dib u dhiskiisii dib u heshiisiintiisii nabadgelyadiisii waxaanu u soo marray tacab madaxaa nagu caddaaday uma soo marin waxaanu u soo marray ragga talada haye madaxweynaha iyo inta ku xeeray umay soo marin raggii dastuurkan aanu ilaalinayno sameeyey baanu nahay wax ka sameeyey annana ku xadgudbi mayno dastuurka kana yeeli mayno cid ku xadgudubta 130 qodob baa qarankan isu haya marbana shaarka la doonanoo lama xidhan karo waa nasiib darro mas-uul xukuumaddaada ka tirsani inuu yidhaahdo doodii twitterka habeenkii dhoweyd waa nasiib darro inuu yidhaahdo dastuurka qaranka waxaa loo jebinayaa iyadoo aqoon-yahanadii oo dhan maqlayaan danta qaranka waa nasiib darro waa aragti saboola mudane madaxweyne annaga badheedhaha iyagu waa cadiyahee ninka badheedhaha looga baahayey waa adiga iyo madaxda kugu xeeranaad cugatay ka badheedh inaad ka tanaasushay ku dhaqanka dastuurka dalkan ka badheedh ka badheedh inaad ka tanaasushay ilaalinta diinta islaamka ee ummaddan budliga u ah ka badheedh inaad ka tanaasushay midnimada iyo wada jirka iyo isku haynta ummaddan sidaa dawladaha loo maagayey ayaa culimadii waddankanna loo caayay waa nasiib dar culimada waddankani waa magayno ma aha qarankan rag dibindaabiyeeyey nin cadow u soo raacayna ma aha maalmo badan bay qaranka ku leeyihin dib u dhiskiisii bay ka qayb qaateen
nabadgelyadiisa bay ka qayb qaateen dib u heshiisimaa colaadaha ay ka qayb qaataan wax dhib ay naguma hayaan haddaanayba siyaasad bay inoogu imaneen masaajidadooda iyo halkaa joogaan taladooda in loo dhug yeesho la wargeliyo wixii fatwo sharciya la weydiiyo wixii siyaasadana lagu wargeliyo ayay mudan yihiin waan ka xumaa qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland lagama dhiwan karo dhufays ummadda lagaga xadgudbo xuquuqdooda iyo xorriyadda qowdkooda sharciga iyo dastuurka dalkan uu damaanad qaaday waanu ka digaynaa tallaabooyinka waa ka digaynaa waanu ka digaynaa ummaddani isku hayn wada jir iyo midnimo ayay qaran ku noqon kartaa dunida ku baryi kartaa hambada hadhay in la isku hayo ayaa maanta mudnaan leh halkuu dhigii wada jir iyo xukuumadda wada jir iyo waxqabad wuxuu ku soo ururay indha sarcaadin iyo afka baarkiisa waa taa muuqata mudane madaxweyne si cadhalana kuugu jawaabi mayno cunfi iyo cayno nagama kaa geedo maamuus baad nagu leedahay waxaad tidhi xiniyo yeesha xiniyo waa kuwaanu ku hadlayna de xiniyaa naga hadlinaya xiniyo waa kuwaanu shalay kugu dhisnay ee kugu raacay waa kuwaanu xisbigaagoo go'doona oo ilmaynaya aanu ilmada kaga biin waa kuwaanu buuraha kaga soo ragnay xisbigaaga waa kuwaanu shuruucda iyo isasaarka kaaga shaqayn waa kaanu sawirkii midnimada iyo xulfada guusha wadani kaga shaqayn kuwii shalay nagu jiray maantana waa nagu jiraa ixtiraam baanu kugu leenahay qadarin baanu kugu leenahay talada qaranka inaad naga qayb geliso waxa danta guud aanu kugu leenahay inaad cadho iyo umal noogu jawaabto kaama mudni in madaxdaadu wixii shalay lagugu caayay annagana nagu durto ceeb bay adiga kugu tahay cantara ibnu shadaad wuxuu ahaa nin madow hooyo madow baa dhashay qabiilada cabas loodhan jiray oo itaal darayd buu ka mid ahaa wuxuu ahaa nin xoog weyn laayaana dagaalyahana midab sooca iyo siduna wakhtiyadaa jaahiliyadda xoog bay ahay wuxuu ahaa ninka qabiilkaa guulaha waaweyni soo hooyey ee marka dagaal dhacana hoostiisa iyo damalkiisa la hadhsado marka nabaddana waa la maagaayo waa la duraayoo ninkii hooyada madow ay dhashayoo bay ku odhan jiraan reerkooda gabay buu tiriyey yunaaduunanii fi silmi yabna zabiibatin wa cinda sidaami alkhayli yabna adaayibi marka nabadda iyo barwaaqada la galana kii islaanta madoobi dhashayow baa tolkay yidhaahdaa marka colaaddu muuqatay ishu dhiigga yeelatana yaa kii hooyada wanaagsanaayo waar dee ima wada qabata buu lahaa yaa waxaad noo quudhay iyo waxaanu qaantaanu kugu lahayn nama wada qabato milgaha iyaga ma ahayn taas mudane madaxweyne munaasib kuuma ahayn milgahaagana ma ahayn madaxweynihii talada dalkan kaaga horreeyey ee doorashada fiican qabtay ee sida wanaagsan u gelbiyey ee odaynimada muujiyey wax kasta ay raggu waysla soo maraa yaa acmaashu waa khaatumada taariikh weyn buu muuse bixi leeyahay oo aan cidina ka tirtiri karin doorashooyin aanu faragelin doorashooyin waaweyn oo isku lamaanuu qabtay oo kala duwan isagoo aan faragelin isagoo halkaa ka fadhiya isagoo gelbiye kursigii isagoo ku garab galay ma ahayn munaasib inaad maag aad madalaha warbaahinta u soo mariso ma ahayn xataa haddaad wax ka tabatay isaga iyo annagaba waxay odaygayagii baa te qaranka adaa u oday inaad noo yeedho oo te war maxaa gacmaha giiljiro hoos baa loo dhaqaa ma ahayn hadalkii aad soo qaaday golahaan fadhiyey markuu yidhi hadal odaynimo leh
oo dalkan inuu la jecel kaleeyay muujinaya buu ahaa beertaydii baan ka soo orday markii aan ictiraafka maqlay waa hadal gobonnimo leh oo wanaagsan inaad ku jeesto baqadda umuu soo ordin oo adiga ka baqayay ninku waa Muuse yaa waxa weeye wuxuu yimi gobonnimo iyo xaq qarankani ku leeyahay ma ahay ma mudnayn erayada aad u qoodhay ma ahay hogaamiyu waa bini aadan wuu gafi karaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne sax khaladaadkaaga waxaan leeyahay siyaasad saboolad kaaliyaal aan waayo arag hayn oo badan oo kugu xeeran iyay jarkaa tuurin tookha tiiqtiiqsiga tudhaala la'aanta ku tumashada sharciga tilmaamaha kaa muuqdaa qarankan tawsta iyo tabaala kama saari karaan xaqiiqadan kuu sheegaya magac iyo muuq wanaagsanna adigana kuuma noqon karaan laxad jeclo badan baanu kaa leenahay shirkii xisbiga golaha dhexe ee waddani waxay xukuumadda xisbiga waddani keeni kari weyday waxay ummaddan u qabatay waxay keeni kari weyday aragtiyaha duruufaha qarankan ku xeeran ay ka leedahay muddadaa sanad iyo barhkaa ummaddan dhibaatooyin badan baa ku dhacay maamul baa laynaga dhinac sameeyey oo dalkeennii qayb la gooyey iyadoo xukuumadda xisbiga waddani talada haysa waa taariikh u qoran shacbigeennii oo dhan baa iifiisa lagu ajburay oo ilaa iyo maanta dadkeennu la tiicaya oo la maarin kari waayey abaarihii dhacay baa laga mashquulay guyaraan baa jirta macaluusha magaalooyinka ka taagan weligeed ma soo marin Soomaaliland iyo saboolnimada iyo faqriga waar miyaad aragteen wax hadal haya xarigii iyo ku xadgudubkii suxufiyiinta iyo xorriyatul qowlka ayaa xarkaa goostay hadeerna waxa baanu maqalay waxa loogu hanjabayaa liisanada loo diidi doonaa kii la doonayo wala dhana dheeri ka fog war qarankan waxaan waxa loo soo maray hayaan dheer dhig baa ku daatay inuu sawir kan yeesho yani nina laga aqbali maayo maxaabiistii xidhnayd ayaa mudnaan la siin waayey xoog iyo xeeladkii lagu soo daayaba godoloolooyinka iyo guuldarrooyinka goshiina yaallaa tiro iyo xad bay beeleen markaad wax kala weydeen waxaad tamar iyo tala idinkaga ururtay inaad gudmulacaa gashaan oo taa aqoonsigu waa laga soo horjeedaa war aqoonsigu waa mas'alo gaar ah beed yaroo jabaya maaha waa mabda ummaddan aaminsanta dariiqa loo marayo madaxweyne cabdiraxmaan hadduu dee aqoonsiga qudus dhaafsaday hawsheega ummadda annaga noomuu sheegin wuxuu yidhi wax shuruuda layguma xidhine afkiisaanu ka haynaa hawsheega ummadda waxaan ku soo ururinayaa warbaahinta madaxa bannaan halkan joogta iyo haldoorka dhammaantiinba aad iyo aad baad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi